السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Garaa TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ka hadlay sida uu u arko guriga ay magaalada Muqdisho uga dhisayaan taageerayaashiisu xisad ka taagan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kadib markii la xirxiray qaar kamid ah dadkii ka qayb galay dibadbax ay si hor u dhaca ugu qabteen mucaaradku gudaha magaalada Hargeysa iyo ciidankii ugu badnaa oo lagu daadgureeyay xaafadaha ay mucaaradku ku badan yihiin magaalada Hargeysa dawladda Qatar oo ka walwalsan talaabooyinka uu qaadi doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilli ay meesha ka baxday xukuumaddii hore ee ay xiriirka la lahayd xogaga ahlusunna oo ka dalbaday Xasan Sheekh in uu soo kala dhex galo iyaga iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo amniga Muqdisho oo si weyn loo adkeeyay xilli Khamiista lagu wado in ay ka dhacdo caasimadda xafladda caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qodobada ay kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka Garaa TV u diyaar garoobay oo dhameystiran soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaa TV oo dhameystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhaca warkeena ardin kugu sheegay baa afayeen u hadlay madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday sida uu Farmaajo u arko lacagta la sheegay inay shacabka Soomaaliyeed u aruurinayaan si guri loogu dhiso Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa sheegay in fikradan oo loogu magac daray mahadsanid madaxweyne ay ka timid shacabka Soomaaliyeed si loogu mahad celiyo isla markaasina loogu abaal mariyo amaanadii qaran ee uu xifdiyay isla markaasina sida uu isaga ilaaliyay xoolaha dadweynaha lagu abaal marinayo sida uu sheegay afayeenka Farmaajo wuxuu inta raaciyay in madaxweynuhu markii uu maqlay fikradan ay soo gaarsiiyeen shacabkii fikradan lahaa inuu aqbalay una u arkay in fursadani ay tahay mid fiican maadaama aysan horay uga dhicin Afrika in madaxweyne xil qabtay dad shacab ah ay guri u dhisaan iyaga oo ku abaal marinaya sida uu amaanada u ilaaliyay walow aan la isku raacsanayn in Farmaajo uu ahaa hogaamiye aamin ah haddana dad badan ayaa qaba in uu iska ilaaliyay musuqa oo ka dhowrsaday ku takrifalka hantida dadweynaha intii uu xukunka hayay wuxuu intaa ku daray in madaxweyne Farmaajo uu diiday in lagu takrifalo hantida qaranka isla markaana uu la dagaalamay musuqmaasuqa iyo wax walba oo ku gadaaman waxa isdabamarinta sida awgeedna markaan madaxweynaha ay u abaalgudayaan shacbiga Soomaaliyeed walow Soomaaliya ay wali kaalinta koowaad kaga jirto dalka dunida ugu musuqa badan intii Farmaajo uu xukunka hayayna ay booskaasi Soomaaliya difaacanaysay gurigan ayuu sheegay inuu yahay guri aan caadi ahayn maadaama buugga diiwaangelinta la yaabka dunida ay gali doonto sida uu hadalka u dhigay afayeenka madaxweynihii hore ee Soomaaliya wuxuuna sheegay in dadka fariimaha iyo lacagaha soo diraya ay ugu badan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u mahad celinaya madaxweyne Farmaajo oo lagu xasuusto sida uu u dhisay ciidanka una ilaaliyay xuquuqdooda oo aanay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xitaa hal bilna aan mushaarkooda uga soo daahin intii uu Farmaajo xukunka hayay talaabadaasi oo si weyn loogu amaanay madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi afayeenka madaxweynihii hore ee Soomaaliya in ciidamada qalabka sida ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka iyo kuwa jooga magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso caasimadda dalka ee Muqdisho inay qayb mushaarkooda kamid ah u soo dirayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo si ay uga qayb qaataan dhismaha guriga madaxweynaha ee caasimadda laga yegleelayo aqoon-yahano arrintan ka hadlay ayaa sheegay in qorshaha lagu aruurinayo lacagta uu yahay mid lagu been xalaaleynayo hanti badan oo laga dhunsaday shacabka Soomaaliyeed taasi oo ku maqan nidaamkii hore ee uu Farmaajo hogaaminayay oo 5 sano iyo dheeraadkii ay xukunka Soomaaliya hayeen ay ka tabceen hanti fara badan marka laga soo tago taageerada ay qayb kamid ah shacabka Soomaaliyeed u muujinayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo aragtida ay saaxiibadiisu ka aaminsan yihiin ahaa in uu ku sifoobay hogaamiye aamin ah haddana waxaa jira qaybo badan oo shacbiga Soomaaliyeed kamid ah oo ka hor yimid talaabada Maxamed Cabdilaahi Farmaajo guriga loogu dhisayo xilli ay dadka Soomaaliyeed badi la ildaran yihiin abaarta ku dhufatay qaybo badan oo Soomaaliya kamid ah inta ay socotay lacag aruurinta loo sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dhacdooyinka la yaab kale ee la diiwaan galiyay waxa kamid ah in ay dadka qaar ee ku sugan gobolada Soomaaliya baahi darteed ay geedaha u cunayaan kadib markii ay waayeen cunto ay isticmaalaan
tan oo ka dhigan in qaybo ka mid a dalka ay dadku baahi ugu dhimanayaan xilli madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo la aaminsan yahay inuu hanti badan haysto ay shacbigu qorshe lagu tilmaamay faakahaysi guri ugu dhisayaan talaabadaasi oo lagu kala qaybsamay hase yeeshee Farmaajo iyo saaxiibadiisu waxay aaminsan yihiin in qorshaha guriga loogu dhisayo uu yahay mid maqaamka madaxweynaha lagu ilaalinayo isla markaasina loogu abaalgudayo iyaga oo ku tilmaamaya inuu ahaa hogaamiye aamin ah oo hantida ummadda iska ilaaliyay dalalka caalamka waxaa inta badan u degsan sharciyo xadidaya lacagta kaashka ah ee qofku hal mar bangiga geyn karo waxaana inta badan lagu xadidaa ugu badnaan $10,000 Soomaaliya ma lahan sharci noocaas ah balse meeqaamka iyo magaca Farmaajo ayaa laga cabsi qabaa inuu soo jiito dareenka bangiyada isla markaana uu abuuri karo shaki badan haddii lacag tiro badan hal mar lagu wada shubo bangiyada dalka taasi oo la sheegay in qorshaha guriga loogu dhisayo madaxweyne Farmaajo sidoo kale la dhex marsiin doono malaayiin dollar oo ay Farmaajo iyo saaxiibadiisu ka macaasheen Soomaaliya intii ay xukunka dalka ugu sareeyeen inkastoo aan dhacdooyinkaasi la hubin haddana dhinacyada diidan nidaamka lacag aruurinta ayaa qaarkood ku doodaya inay jiraan dad lacag loo diray oo ku sugan dalka dibadiisa kuwaasi oo dib u soo celiyay lacagtii loo diray oo ay sheegeen inay ugu deeqeen Maxamed Cabdilaahi Farmaajo balse madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisu waxay ku doodayaan in jacaylka iyo taageerada loo qabo hogaamiyihii hore ee dalka uu ku mutaystay dhaqaalaha xad-dhaafka ah ee loo aruurinayo oo hadda la aaminsan yahay in uu marayo meel wanaagsan inkastoo aan la ogeyn heerka ay gaarsiisan tahay lacagta uu shakhsiyan u haysto Farmaajo haddana waxaa la qiyaasay inay malaayiin dollar dhan tahay iyada oo laga qiyaas qaadanayo ololihiisii doorashada iyo sida uu ahaa hogaamiyihii dhaqaalaha ugu badan ku baxshay doorashada ee xildhibaanada badan soo saartay dowlad goboleedyadana duulaan ku qaaday isagoo adeegsanaya hantida dowladda Farmaajo wuxuu ahaa musharrixi bixiyay lacagtii ugu badnayd doorashada waxaana la aaminsan yahay in uu ku soo saartay halkii xildhibaanba adduun lacageed oo ka badan $100,000 Mareykanka ah inkastoo aanay u suurtagelin inuu dib kursiga ugu soo laabto wuxuu sidoo kale hadda kiri ahaan u degan yahay guri bishii kiradiisu ay dhan tahay wax ka badan $30,000 taasina waxa ay dhalinaysaa su'aal ku saabsan lacagta Farmaajo uu helay inuu xildhibaano ku iibsado gurina ku kiraysto balse aanu u haysan inuu guri ku dhisto jawaabta ayaa noqon karta mid ujeed gaar ah laga leeyahay iyo in indhaha dadweynaha lagu leexiyo guriga iyadoo oo laga mashquulinayo dhaqaalaha laga tabcay nidaamka dawladnimada intii uu Farmaajo xukunka hayay guriga laga dhisayo aaga cagaaran ee Muqdisho oo ah aaga garoonka diyaaradaha waxa ku baxaya malaayiin dollar mana aha wax qarsoomi kara waxaana la aaminsan yahay in hantida faraha badan ee la aruurinayo ay Farmaajo u goyso qasri weyn oo ka dhisto aaga garoonka diyaaradaha aadan cadde inkastoo wali halkaas aan la isku raacin in guriga laga dhiso iyo in kale afayeenka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wuxuu sheegay in wajiga koowaad ee lacag aruurintu ay socon doonto muddo bil ah iyadoo oo la rajaynayo sidoo kale marka guriga la dhiso in sidoo kale lagu daro qorshe kale oo lagu dhisayo xarun uu yeelanayo xisbi gaar ah oo uu dhawaan ku dhawaaqayo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo doonaya in uu ku dhawaaqo xisbi siyaasadeed ay isaga iyo taageerayaashiisu ku midaysan yihiin maadaama uu wali rajo ka qabo xukunka dalka inuu dib ugu soo laabto uuna rajaynayo marka la gaaro doorasho qof iyo cod ah oo aan la hubin inay Soomaaliya ka dhici doonto 2026 in uu xukunka isku soo taago si uu shacabka codkooda u weydiisto xogaga ahlu sunna ayaa ka dalbaday madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu dhexdhexaadiyo iyaga iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor hogaanka ururka ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ay ka filayaan inuu dhexdhexaadiyo iyaga iyo maamulka Galmudug ahlu sunna ayaa 8 bilood ee ugu dambeysay isku aruursanaysay deegaanka Bohol oo dhanka waqooyi kaga beegan caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb kadib dagaalkii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Gurceel waxayse dhawaan weerar rogaal celis ku qaadeen caasimada Dhuusamareeb halkaasi oo ay ku jabeen iyadoo oo taasi keentay in xitaa laga qabsado saldhigoodii ugu weynaa ee deegaanka Bohol waxaana isdhiibay inta badan ciidanka ahlu sunna iyadoo qayb kamid ah hogaanka ahlu sunna oo firxada ay galeen deegaanada Puntland sida aynu ku helnay warar lagu kalsoon yahay ila ku dhow hogaamiyaha guud ee ahlu sunna wal jamaa Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo dibad joog ah
ayaa sheegay in filla Soomaaliya ay ka doonayaan in ay ka soo qayb geliso dadaalada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta Galmudug si xal loogu helo xurgufta kala dhaxaysa madaxtooyada Galmudug ee uu fadhiyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ila wareedyadan ayaa sidoo kale sheegay in hoggaanka Ahlus Sunnah ay ku andacoonayaan in sifo aan sax ahayn loogala wareegay magaalooyinkii ugu waaweynaa Galmudug sida Dhuusamareeb iyo Gurceel ee ay xukumayeen halkaasi oo sanado badan ay ka arriminayeen al-shabaabna ka xoreeyeen balse ugu dambeyn iyaga laga xoreeyay madaxa arrimaha siyaasadda ee Ahlus Sunnah Cabdisalaan Aadan Xuseen ayaa toddobaadkii hore sheegay inaanay iyagu cidina weerar ku ahayn balse ay diidan yihiin shirqoolada ay u maleegtay sida uu yiri dawladii uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo si weyn ula dagaalantay xoogaga Ahlus Sunnah kana sifaysay deegaanada Galmudug madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligii uu ahaa madaxweynihii 8aad ee Soomaaliya waxa ay dawladiisu dadaal badan ku bixisay in ay heshiis la gasho xoogagii Ahlus Sunnah balse umaanay suurtagelin madaxweyne Xasan Sheekh in uu ka dhaadhiciyo Ahlus Sunnah inay xilligaasi ka wareegaan Galmudug oo ay maamulka caqabada ka daayaan ugu dambeyn xoogaga Ahlus Sunnah ayaa lagu qasbanaaday in dagaal lala galo si meesha looga saaro maadaama loo arkayay inay caqabad ku yihiin jiritaanka dawladnimo ee Galmudug haatan waxa ay Galmudug wajahaysaa xiisado siyaasadeed oo kala dhaxeeya laba dhinac oo kala ah xoogaga Ahlus Sunnah iyo al-shabaab oo maamulku si isku mid ah ula dagaalamayo maamulka Galmudug ee uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa dhawaan waxa uu shaaca ka qaaday inaanay waxba ugu kala duwanayn Ahlus Sunnah iyo al-shabaab oo ay si isku mid ah ula dagaalamayaan balse xoogaga Ahlus Sunnah ayaa sheegay inay ka rajeynayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu dhexdhexaadiyo iyaga iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyaga oo ka faa'iideysanaya xiriirka ay la lahaayeen Xasan Sheekh xilligii uu ahaa madaxweynihii 8aad ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkii hore booqday caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa isagoo la hadlayay madaxda iyo bulshada reer Galmudug waxa uu kula dardaarmay inay ka digtoonaadaan khilaafaadka qulubtoodana ay isu furaan oo ay gacmaha isqabsadaan si ay horumar buuxa uga hirgeliyaan deegaankooda nolol wanaagsanna ay ugu abuuraan ubadkooda si kastaba ha ahaatee baaqa Ahlus Sunnah ee xilligan ayaa ah in la heshiisiyo hoggaanka Galmudug hal meelna lagaga soo jeesto dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka al-shabaab inkastoo Ahlus Sunnah ay aaminsan tahay in wax laga siiyo xukunka maamulka Galmudug hadii la doonayo in xasilooni laga helo deegaanada Galmudug hadii ay taasi dhici weydana ay iyagu mar walba soo abaabuli doonaan maleeshiyaadka caqiida ahaan raacsan oo ay taasi keeni karto xiisado aan dhamaad lahayn oo ku soo noqnoqda magaalooyinka waaweyn ee Galmudug gaar ahaan Gurceel iyo Dhuusamareeb oo ay si isku mid ah duulaan ugu yihiin xoogagii Ahlus Sunnah ee kol hore laga saaray lama oga sida uu madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u wajihi doono baaqa ka soo yeeray hoggaanka sare ee Ahlus Sunnah ee ku aadan inuu dhexdhexaadiyo iyaga iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor hargeysana wararka ka imaanaya waxay sheegayaan halkaas ay ka taagan tahay xiisada kadib markii ay ku sameeyeen dhaqdhaqaaqyo ay ugu diyaar garoobayaan dibadbaxyada ay dhawaan ku baaqeen xukuumaduna ay diidan tahay waxaana bartamaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa la dhoobay ciidamo fara badan oo isugu jira booliis iyo military si ay amniga magaalada u ilaaliyaan ugana hortagaan dibadbaxa ay mucaaradku qorsheeyeen wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ayaa sheegayaan halkaas ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaanka xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid xisada ayaa salka ku haysa qabsoomida doorashada madaxweynaha ee Soomaaliland oo lagu ballansan yahay inay dhacdo 13 bisha November ee sanadkan balse u muuqata in ay dib kaga dhici doonto xilligaasi kadib markii ay kala tageen guddigii doorashooyinka Soomaaliland oo iscasilay xukuumadda ayaa doonaysa in muddo kororsi la samaysto halka mucaaradku ay diidan yihiin iyadoo oo khilaafkaasi uu sababay in gabi ahaanba uu burburo guddigii doorashooyinka Soomaaliland oo dhammaantood iscasilay xukuumadda Soomaaliland ayaa ciidamo dheeraad ah ku daadgureysay xaafadaha qaar ee magaalada Hargeysa iyo wadooyinka muhiimka si ay uga hortagto dibadbax ay qorsheynayaan xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid waxaana lagu arkayay ciidamada meelaha qaar oo askar fara badan la geeyay kuwaasi oo hubeysan isla markaana wata gaadiidka ciidamada iyo qalabka lagaga hortago rabshadaha waxayna doonayaan inay xiraan dadka ka soo horjeeda awaamiirta dawladda ee doonaya inay dibadbax dhigaan ciidamada Soomaaliland ayaa waxa ay xabsiga dhigeen mulkiilaha maqaayada Sima Cafeteria
oo lagu magacaabo Axmed Sayid kaasi oo la sheegay in maqaayadiisa ay ku kulmeen oo ay ka shaaheeyeen musharaxa kursiga madaxweynaha Soomaaliland ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo taageerayaashiisa oo halkaasi isugu soo baxay isla markaana uu Ciro taageerayaashiisa halkaasi ugu qudbeeyay balse ciidanka oo halkaasi tagay ugu dambeyn ayaa soo xiray ganacsadihii iska lahaa maqaayadaasi iyadoo oo loo haysto sida ay mucaaradku isugu yimaadeen aagga maqaayadiisa musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Ciro waxa uu sheegay in ay andaro tahay in xorriyadiisa laga qaado oo xabsiga loo taxaabo mudane Axmed Sayid Haybe oo ah mulkiilaha meherada Sima oo uu sheegay inay ku shaaheeyeen isaga iyo taageerayaasha xisbiga wadani iyo saraakiil kale oo xisbiga ka tirsan halkaasi oo ay ku kala warqaateen wuxuuna sheegay in dabaysha isbedelka ee uu hogaaminayo xisbiga wadani ay Soomaaliland ka dhaqan gali doonto isla markaana la iska dulqaadi doono nidaamka uu ku tilmaamay midka kaligii taliska ah ee xukuumadda Soomaaliland oo uu hormuudka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mucaaradku waxay aaminsan yihiin in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu doonayo inuu xukunka dheeraysto isaga oo ka tusaale qaadanaya ku darsasho hore oo ay sameeyeen dhinacyada qaar doonayana inuu doorashada dib u dhigo taa bedelkeedana uu qabto doorashada ururada siyaasadda oo ujeedka laga leeyahay tahay in meesha looga saaro labada xisbi ee u ciidiya wadani ee dhinaca mucaaradka ka socda si uu ugu soo haro xukunka xisbiga kulmiye ee haya talada Soomaaliland isla markaasina loo baadi goobo laba xisbi oo cusub oo aan ka soo horjeedin in uu kulmiye sii hayo talada Soomaaliland xukuumadda Dooxa ee Qatar ayaa ka walwalsan sida uu noqon doono xiriirka iyaga iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib isbedelkii siyaasadeed ee ka dhacay Soomaaliya iyo ka tagitaankii xafiiska ee madaxweynihii sagaalaad ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo muqdisho iyo Dooxa waxay lahaayeen cilaaqaad saaxiibtinimo iyo xiriir joogto ah 5 sano ee la soo dhaafay waxaana Dooxa oo kolkii horeba kaalin ku lahayd in uu Farmaajo qabto kursiga ugu sareeya Soomaaliya ee madaxweynaha ay markii dambe taageeradeeda u rogtay mid joogto ah oo aan kala go' lahayn iyada oo xiriirka Soomaaliya iyo Qatar uu sababay in uu sidoo kale meesha ka baxo xiriirkii ay Soomaaliya la lahayd wadamada kale ee Carbeed gaar ahaan isu taga Imaaraadka Carabta boqortooyada Sacuudiga iyo xitaa Masar waxa ay iminka ka walwalsan tahay dawladda Qatar isbedelka siyaasadeed ee ka dhacay Soomaaliya iyo sida uu ula dhaqmi doono madaxweynaha cusub ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo la aaminsan yahay inuu yahay nin u janjeera dhinaca isu taga Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga oo aanay si weyn isugu fiicnayn Qatar waxa ay maleynaysay in mashaariic ay hadda ka wado gudaha Soomaaliya oo ay ugu waaweyn yihiin wadooyinka laga hirgeliyay Muqdisho iyo Afgooye iyo tan iminka uu dhismaheedu socdo ee Muqdisho iyo Jowhar iyo mashaariic kale oo ay ka hirgelin lahayd gudaha Soomaaliya in ay ku bedelato in iyada loo gacan geliyo soo saaritaanka shidaalka Soomaaliya iyo dana kale oo ay ka lahayd gudaha Soomaaliya balse xilligii ay Qatar faa'iidada ka heli lahayd Soomaaliya ayuu meesha ka baxay hogaamiyihii ay isku fiicnaayeen ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaana xafiiska la wareegay Xasan Sheekh oo ay si weyn isugu dhow yihiin dawladaha Turkiga iyo isu taga Imaaraadka Carabta oo la aaminsan yahay in Xasan Sheekh ay xiriir gaar ah la yeelan doonaan inta uu xafiiska joogo 4 sano ee uu qorayo inuu xukunka hayo dastuurka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in uu hagaajin doono cilaaqaadka ay Soomaaliya la leedahay dhammaan dalalka caalamka isagoo halku dhigiisa ka dhigtay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah lamana oga in tan ay Qatar faa'iido ka dhexeli doonto oo ay u suurtagali doonaan danaheedii ku wajahnaa Soomaaliya balse Xasan Sheekh oo maanka ku haya dhibaatadii ay Qatar ka geysatay Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay iyo sida ay dawladda federaalka ugu taageertay in lagu duulo mucaaradka iyo maamul goboleedyadii ka soo horjeeday nidaamkii Farmaajo ayaa tani waxa ay dhaawac ku noqon doontaa danaha Qatar ee Soomaaliya waana tan keentay walwalka ay wajahayso xukuumadda Dooxa ee ku wajahan Soomaaliya muqdishona amniga ayaa si weyn loo adkeeyay iyada oo la filayo in qamiista ay halkaasi ka dhacdo xafladda caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 20 cisho ayaa ka soo wareegtay doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyada oo lagu wado in 9 bishan Juun oo ku beegan qamiista la caleemasaaro
xafladda caleemasaarka ayaa waxaa kasoo qeybgeli doona madax ka socota dalalka gobolka iyo marti sharaf kale. munaasabadda caleemasaarka ayaa dib uga dhacday waqtigii la filayay in la qabto oo ahayd 10 cisho kadib markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud, waxaana dib u dhaca lagu sababeeyay arrimo farsamo iyo in madaxda lagu martiqaaday caleemasaarka oo aan xilligaasi la heli karin waqtiga martiqaadka loo dirayna uu jadwalkoodu buuxay, si gaara madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. xubno ka tirsan guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in xilliga ugu macquulsan ee xafladda caleemasaarka la qaban karo ay noqotay 9 bisha si diyaargarow dhammaystiran loogu helo xafladda iyo waqtiga madaxdu imaan karaan. waxaana la aaminsan yahay in xafladdan oo adduun lacageed oo ku dhow 2 milyan oo doolarka Mareykanka ah uu ku baxayo in ay kasoo qeyb galaan madaxda dalalka gobolka iyo xitaa marti ka imaanaysa gudaha dalka oo ay ugu horeeyaan hogaamiyaasha dowlad goboleedyada. madaxweyne xasan sheekh ayaa la filayaa marka la caleemasaaro kadib inuu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya si uu u soo dhiso xukuumaddiisa, gaar ahaan marka ay baarlamaanku ogolaadaan ama ansixiyaan ra'iisul wasaaraha uu xasan sheekh soo magacaabi doono oo ilaa hadda tartan adag loogu jiro. waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Garaa TV.